صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إله ما هاد iskale marka koowaad nimcooyinka tirada badan ee islaamnimada ugu horeysana siiyay aan u mahadcelineynaa. intaa kadib aniga hadafkay wuxuu ahaa inaan mowduuca hore ka galo oo wixii aan soo diyaariyay aan ka hadlo, laakiin su'aalahaas ustaad geedi weydiinay iyo kuwan kale ee ma aragtay dadka is weydiiyaan wax hadda weyn oo ma aragtay ani iga xiran ama idinka idin tareysana ma aha. midna ogaada qofka markaan noloshayda horta ma jeclayn inaan ka hadlo waxaan ahay iyo waxaan qabtay iyo waxaan soo maray iyo inaan ka hadlo ma jeclayn, laana aniga tusaale ma noqon karo. arday baan ahay, wali waxbaan bartaa, wali ma aragtay waxbaan akhristaa, safarkii noloshaan ku jiraa. waxa aan sheegayo waa wax ama meel ku qoran ama dad culimo ay sheegeen oo ani anfacay oo jeclaaday inay ummadana wax u tarto. يعني waxa idin sheegayo waa min baab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. walax fiicana isku aan arkay oo aniga anfacay ama wax ii taray wixii anfacay bedelkii aniga kaliya way kaan lahaayeen oo aniga kaliya ma aragtay waa ka faa'iido isdhihi lahaa. waxaan goostay inaan dadka la wadaago waxaas aan sheegayo marka waa uun hadal ama ma aragtay waxaan soo aqriyay ama aan soo bartay waa. laakiin dabcigeena Soomaalidana waxa u badanahay qofka wuxuu sheegay lama fiiriyo, laakiin maxaa la fiirinayaa qofkii waa la fiirin. waxay dhahaan aqliyada bini aadamka saddex ay u qaybsamaan: aqli cuquusha yaryar ee micnaha aan ku fadhinin, iyo cuquul dhaxdhaxaad ah, iyo aqliyada weyn ee qaangaaray ee ma aragtay fikirkooda u fiican yahay loo qaybiyaa. cuquusha yaryar waxa yiraahdo waxay ku mashquushaa dadka. hebel saan waaye, hebel halkaas uu ka baxay, heblaay kaas uu ka baxay, heblaay saasay noqotay, hebel saas uu waxaas uu guursaday, kan halkaas uu ka baxay, dadkay ku mashquushaa. maanta dhan marka dad lay ka hadlaa waa dhibka anaga Soomaalida haysto. dhalinyarada ma aragtay meelaha ka hadasha waxay dareemaan ummadan wax kale inaysan dhageysanaynin. markaas maanta dhan ku soo hor fariisanayaan ay ku leeyihiin saa isku furnay aan ka sheekeynaa, maanta saa u guursaday aan ka sheekeynayaa, hebel saa isku jeclaanay aan ka hadlayaa, heblaayo ma aragtay way jeclaatay, hebel iyo hebel xiriirka ka dhaxeeya maxaa waaye, suuqay wareego Soomaalmaan hebel iyo hebel xiriira ka dhaxeeya. u fiirso marka wax daawanayno ama YouTube-keena iyo u fiirsanayno waxyaabaha hebel iyo hebel ka hadla waxay leeyihiin view badan, mushaahadaad badan ay leeyihiin. laakiin waxyaabaha fikirka iyo aqoonta iyo aqliga ka hadlaayo waxba ma laha. sababta waxa waaye aqligeena wuxuu taagan yahay inaan ka fikirno heblaayo maalin waxa dhacday gabadha waxaan meel baan wax ka soo jeedinahay. marka dadka qof walba waxbuu caan ku yahay, dadka magaalada dhalinyarada ay xiiseeyaan aan meesha joogay. qof aan markay weydiiyo heblaayo ma soo aragtay ma aragtay marka barnaamijka duubeysay gadaashaada iyadoo socotaan ka arkay way ugu tir. markaas ay waa arkay meesha iska marmaraysa anu danka ma yeelan. bismillaah adoo heblaayo soo aragtay sawir ma la soo gelin miya? laa ilaaha illa allah. ma soo aragtay horta soo aragtay ama sawir la gashay ee kuleeda. anigana wallaahi ina heblaayo tahayba gadaashaan dambe aan ku ogaanaa dan iyo heelka ma lahayn. dadka marka hebel la weyn, laakiin aqligan inuu inta ka koraa fiican oo fikir iyo aragti iyo mabda ka doodno bedelka hebelka doodi lahayn. su'aalaha marka ama siiradaas maxaan nafteedii nolosheeda ka sheekeeyaa wali ma gaarin, waqti aan iska sheekeeyo ma gaarin, waqti aan iska hadla ma gaar. xaqiiqatan tawaaducna ma waxa iska dhigdhigaay ma tawaaduc ma, laakiin iska sheekeeyo oo dadkiinaan maanta yimid ee guryahoodii ka soo tagay ee wax inay faa'iideystaan u yimid waxa ceeb ila inaan aniga ama aniga wax u arkay idin sheega ceeb ila. mowduucan imisaan diyaarinay way kula tahay meeqa ma aragtay buwaagteeda raadi oo dowraadkeeda raadi oo wax ummadii marka inta ka baxayaan wax maskaxdooda wax ku kordhiya u sheeg aan wax u raadiyaa. xaqiiqatan runtaan idin kala hadlaaya. marka taas horta taa ogaada oo
tawaaduci isdhul dhigid iyo iska yaalyaalna igama aha laakiin waa ila ceeb waana igala sareysaan oo igala weyntihiin ina maanta dhan aniga iyo waxaasaan ahay iyo waxaasaan ka qabtaa ina idin sheego wallahi waa igala weyntihiin waana ma aragtay igala sareysiin waana igala darajo sareysiin marka aniga safarkii noloshaan wali ku jiraa adinka camal ahay safarkaas idin la marooyaa waxaan aan sheegoyana like microphone ka camal weeye waxaan soo aqriyay soo ogaaday oo raba adina ina ogaatid leeyahay macluumaad inaan gudbiyo weeyaan ujeedkay ugu weyn waa in ummadeena dhalinyaradeena ay hagaagaan taas aan muhiim ah waxa ugu weyn waxa u sheegayo ilaahay way maqlaaya ma rabo inaan caan noqdo ma rabo inaan ma aragto wax ku helo bal laga yaabaa inaan aniga wax iga gasho maahan aniga wax ku meelo xaqiiqatan waxa soo dhan u sameeynayo dhalinyaradeena iyo mustaqbalkeena waa la hormaray qarniga 21 marena 80 inaan noolaano ma aha aabayaalkeen iyo hooyooyinka ilaahay khayr ha siiyo time-kooda way soo qaateen laakiin 60kiisa u noolaayeen hadda u noolaana ka war ayaga adduunyadii hormartay oo la tagay technology yimid cilmi yimid waxbarasho yimid wax badan oo ayaga ka maqnaa anagii fursada u helnay wixii inaan ka faa'iideysano Soomaaliya marka taas weeye waxa ugu weyn u socono taas waay laakiin ma ahan inaan wax kale ku raadineen gurisamada saas ma aragta maanta u dadaasha oo hawshooda ay ku bilowday marka taa horta ogaada niyadiina galiya su'aalahaas kale oo labada su'aal ee la weydiiyay hadda maadaama carabka lagu dhufto haddaan carabka lagu dhufan lahayn cashirkayga toos u gali lahaa laakiin maadaama dhalinyaradu is weydiinaysaa inaan ka jawaabo muhiim ah aniga waxaan ahay qof dhalinyaro ah oo idinka camal ah qof dhalinyaro ah oo arday ah qof dhalinyaro ah oo wax baranayo oo wali ma fasal fariista oo wali ma aragta wax raadsada oo baahano cilmi iyo aqli iyo nolol ay ka maqan tahay waan ahay qof baahan macnaheedu ma ahan waxa cunaa iga maqan ma laakiin cilmi waa iga maqan oo fikir waa iga maqan oo mabda iga maqan oo ummad is haysato wax taqaano qoysas dhisan oo isku faraxsana iga maqan baahidaas wali hees idinkana kulligeen baahida way idin heesaa marka dhalinyaro Soomaaliyeed idinka camal saa u nooshiin baa ku noolaa bas waxaan aan sheegayna waa fursad Ilaahay subhanahu wa ta'ala isiyay idinkan isiisan oo bacdallah idinka hadaad imaan leen maanta yaa la hadal lahad inna lama hadal lahayn darbiga ma la hadal laha maya laakiin ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee qalbiga nadiifka leh fursad ay siiyeen ayaa waxaan ku sheegoyaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin Zahra waa qoftaas waxaan aan bartay ama aan baranayo waa uu ma aragtay cilmiga diiniga la sheego aan takhasuskayga dhakhtarnimo waay medicine soo bartay ilaa haddana inaan ku shaqeeyo oo barto oo ka salgaaraan rabaa dadka qaar waxay u maleeyaan ayaa hore dad dhaqaatiir waxay u dhaheen Zahra miyaha bismillah waxa ku maleynayna caafimaad waxa ina iska dhaaftay dadka dhinacaas kala u badatay arrimaha bulshada u badatay iskama dhaafin caafimaad waa jecelahay shaqadeeda waay hawsheeda waay ina heerka gaaran waa rabaa waqtiga ugu badan ba hadda caafimaad ku bixiya waqtiyadan kale waa 1 saac oo dadka aan la hadlo ama 2 saac waay la waqtiga ugu badan hawshaas aan ku bixiya marka taas takhasuskeyga waay laakiin arrimaha bulshada iyo arrimaha diinta waxyaabo aniga aan jeclaa inaan markasta bartay ahayd walina waan jeclahay barashadooda jaamacad uma dhiganin cilmiga diiniga ah laakiin masaajidna markii hore waan ka raacan jiray jumcihii khamiisti ka dambana mobilada iyo internetyada iyo ma aragtay mimariga iyo sheekh YouTube iyo Dr. Google ama macallimiin iyo haayeen intaas aan ku bartay alxamdulillah fursadaha Ilaahayna siiyeen kamid tahay wax badan oo aan hadda aqaano waxa ku mahadsan ma aragtay sheekh Google iyo macallin YouTube iyo ma aragtay buugaagta PDF-ka firiga internetka iska buuxa taas inta badan ma aragtay wax ku bartaa laakiin jaamacad uma dhigto intaas ay tii kale oo ugu weyneyd mowduucan xulashada aan soo jeedinayo iyo arrimahan qoyska aniga horta wali xulashadii macnaha mowduucan dadka ugu horeeyo ka faa'iideystay horta aniga waa inta aqrinay oo baaray in dhaalaheena ay soo baxay waxaan hore u fahamsanayna waa fahmay wax badan waa ogaaday marka horta waxyaabaha aan sheegoy marka hore anoo ku faa'iido qofka koowaad oo ku faa'iiday aniga waa macnaheedu ma wax kasto oo sheegay aniga waa soo daadiye ma haya aniga u baahan baaya aniga u baahanahay kamid tahay laakiin ma aragtay gabadha maxay xulashada nooga aqrinaysaa ayadaba wali wax ma xulanin aniga taas waxay ii tahay private life noloshay private ka awaay man rabo in mar ma yaani hadda iyo hadhow xataa 60 sano xataa hadaan gaaro
noloshaas khaaska ah wax ma aragtay qofka asaga u qaas ah waay wax special asaga u leeyahay waaye jidkeediina waa ku jiraa inaan ka baxan waa u dhowdahay laakiin xulashadii waa wali ku jiraa waana ku faa'iiday waana ma aragtay inta badan alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyay waxaan aan sheegoyen waxaas aan ku faa'iidan dhalinyaradu ha kugula faa'iido bay iga tahay mid kale oo inta badan aan aqrinay commentiyada inta badan aqrinay dadka waxay ku leeyihiin qofkan asaga ma aragtay aan soo guursanin ama asaga aan waxa soo marin sidee buu anaga wax noogu sheegaya hooyo noo keena ama aabba weyn duq ah noo keena ayaga nolosha yaqaanay noo keena leeyihiin laakiin mid iskaga dhax qaldan dadkaasoo waxa iskaga dhax qaldan waxa la yiraahdo khibradda iyo waxa la yiraahdo tajrubada experience iyo experiment yaa dhaha labada way kala duwan yihiin khibradda na waa gooni tijaabada ama waxa inaad tadbiiqiso practice gareysana waa gooni labada xabo way kala duwan yihiin saa darteed ninkii caqaad ahaa markuu wax aqriska ka hadlay wuxuu yiri waxaan wax u aqriyo inaan caan noqdo wax uma aqriyo buu yiri inaan buugaa qoran wax uma aqriyo inaan hanti ka helan wax uma aqriyo laakiin waxaan wax u aqriyaa hal nolol iguma filna buu yiri hal nolol oo kaliya tayda ah iguma filna taas macnaheeda marka dhinacyo kala duwan wax ka soo aqriyo oo culimo kala duwan fikradihi aan ka soo qaato bulshadiina aan ku dhax noolahay oo dad isguursanay dad isguursaday iyo caruur iyo aan ku dhax noolahay taas macnaheedu waxa way noloshayda kaliya ma noolihi nolol dad kale ay kitaabada ku qoreen ama ay duubeen ama ay dhigeen waxbaan ka soo qaatay waxaana idin sheegoy marka mid kalena ogaada marka qof uu idin hor yimaado oo uu idin dhaho aniga oo hadalkiisa maanta oo dhan ana ay ku badan tahay qofka noloshiisa adiga tusaale ma ku noqon kartaa laana asaga wuxuu leeyahay daruufo u gaara wuxuu leeyahay xaalado u gaara wuxuu leeyahay waxyaabo adiga ma aragtay aan ku quseynin oo asaga quseeya adiga asaga isku mid ma tihiin marka laakiin waxa aan sheegoyo waa macaayir iyo standard la isla wada yaqaano oo dadka dhan ka wada dhaxeeya oo qofka dib ma aragtay carabka ah iyo qofka cajamka ah la isla ogol yahay ayaan sheegoya taas waxay ka saacidee waa wax bulshada dhan mushtarak u ah oo wax ka dhaxeeya laakiin marka aniga khibrad yar oo soo maray aan kaaga sheekeeyo maybe xaaladii aniga igu toosnayd inaysan adiga kugu toosnayn way dhici kartaa marka waxa aan sheegoyo waa wax ma aragtay la isla wada ogol yahay macaayir caalami ah ama standard ah dadka dhan isla wada yaqaaniin bulshada dhan ka wada dhaxeysa waaye laakiin waxa aniga igu saabsiisan idin ma sheegayo waxaan igu saabsiisana wax ma idin noqoto idinka waxaan ku saabsiisana ka badan qof walba maanta naga mid ah tijaabo haysta qof walba maanta iska hadal hadii la yiraahdo maanta dhaw iska hadli kartaa 16 jir marka ahayd xaalad ku soo martay ka sheekeene 18 marka jirtay xaalad ku soo martay ka sheekeene yaani qof haysanin mala wuxuu ka sheekeeyo laakiin wax markaan dadka u sheegaysid waa wax inay noqdaan wax u soo kordhinahay inay noqdaan marka mawduuca qaybtiisa waa ku dheeraaday waxaan rabaa taas inaa ogaataan oo ah ma aragtay qofka inuu wax soo practice gareeyo kaliya kuuma filna مثلا قصة أنا رشيق وشيء ننكري والولي حاس كذي ما عرفت أفرتن سنة صدق سنوات أما لبعتن سنة غير ليه هاي وحاس قبتاي ولي ما عرفت إسلام تادي مودة واتيو مدون كتيب عليه مركزي شيء قط ما لهن كدعوة يقول سبعة هذا أم لا نفتر كذا مركزي وحيري أعوذ بالله وجهي محايد وينه قف كاس وكلا كوي مد هاي لبعتن سنة غير سنة هذا خبرة سيها داتي راه كور qofka khibradiisi oo waxaan ka bartaan ka rabaa si aad tiraado ka waran marka waxa inaad tadbiiqiso ama practice gareyso kaliya ma keenayso in aqoon u leedahay laakiin waxa u baahan tahay inaad baarto inaad aqrisid in macrifad iyo aqoon aad ku fadhiday u baahan tahay taa waa inaad ogaataan marka hooyada mesela dhakhtar caruur ah oo cunug yar ee dhashay inta wado ee dhakhtar wiil yar oo dhalinyaro ah xataa wali guursanin oo ilmo soo dhalin ee u geynayso maxay u geynay ilmo muusa dhalay ilmaha maxay u geynay laana waxa uu soo bartay daaweynta uu soo bartay uu soo aqriyay marka mesela aa ka hadlaysid culumaad jirto rag ah gabdhaha way yaqaaneen fiqiga markii la joogo baabul hayd baabul taharati wixii haweenka ka hadlayaan ma soo arkeen nimanka ka hadlay يعني ما وحي وين كسر دعي ما كسر دعي هالشيء قانون مش هيك وحنا نوم مش رح وحاوي أصلا وحنا صوم أركن ما دي كرتا ما يا سادرت واحد مركز ديسيد وحا كل شيء معرفة يخبرها كل شيء إن بدنا ولا سويدية ولا غيابة
marka waa like dad ma aragtay isku da ah isku lood ah colleague ah saaxiibo ah oo wax wadaagaya baan nahay anaga naftirkeena maniin dad kala sareeyo wallahi qof weyn oo ma aragtay ka sareeyo may laakiin waa dad wax wadaagayaan dad wax isku sheegayaan qof walba naga midan dhinacu ku fiican yahay taas waxay ahayd inaan uga baxay su'aalihii hadaalay ustaad geed uu weydiiyay waxaan jeclaan lahaa mowduuca inaan hore u galo mowduuca xulashada lamaanaha ama qofkan aad guursan lahayd sidii aad ku dooran lahayd waa mowduuc mawaadiicda usrada ama qoyska laga hadlo beyska u ah aasaaska u ah waxayna dhahaan waxyaabaha ugu ma aragtay go'aanada ugu waaweyn ee qofka intuu nool yahay uu qaato ugu waaweyn hadayna ahayn kan ugu weyn waxa waay inuu doorto qofku nolosha la wadaagi lahaa waa go'aanada ugu waaweyn taas macnaheedu waxa waay hadii go'aan weyn ay tahay waxay kaaga baahan tahay barasho iyo tafkiir isaa ku dooran lahayd inta u maray ay kaaga baahan tahay saas oo kale waxa la yiraahdaa qofkan markuu qofkan kala guursanay ereyga zawaaj oo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu noo jideeyay cibaado ilaahay noo jideeyay weeye nabi maxamed umada ku dhiirigeliyay dhalinyaro wuxuu yiri man istataa'a minkum alba'ata falyatazawwaj qofkiini awooda nabi maxamed yaa macshar shabaab tazawwaju dhalinyaro guursado ma dhihin laakiin waxa la yiri markaad awoodid inaad guursatid qofkii ha guursada la yiri meesha maxaa lagu xiray istidaaca lagu xiray awooda lagu xiray waxyaabaha marka awooda qofka u siinaa inuu guursado waxa kamid ah qofkan uu guursanayo wuxuu ku guursanayo inuu yaqaano inuu awoodi karo hadaad aqoonin ka waran oo qofkan waxaad ku dooranaysid waxa ku jeclaanaysid gurigaada waxa dhisaysid aadan aqoonin awoodeedii wali ma lihid saadarteed waxa la yiraahdaa marka guurkaas iyo zawaajkaas waa cilaaqada ama xiriirka kaliya ee qofku uu doorasho inuu doorto uu xaq u leeyahay aabaha iyo hooyadaas oo xiriir waalidnimo kala ma dhaxeeyo walaalahaas oo xiriir walaaltinimo kala ma dhaxeeyo مثلا قرابadaada soo xiriir qaraabanimo kala ma dhaxeeyo kulli adiga ma doortay aabaha markuu ku dhalaado ma doortay aabaha hooyada markay isguursanayeen labadiina isguursada ana dhali doontaan ma tiri maya laana doorasho kuma lihid qabiilka aan noqonaysid adiga ma doortay maya walaalka kula dhalanay adiga ma doortay hadda adiga waa dhalatay walaalka ba ka dambeeyay adiga ma doortay maya laakiin qofka nolosha la wadaagaysid waxa fursad lagu siiyay inaad dooratid waxa xaq lagu siiyay inaad dooratid saadarteed waa xiriirka kaliya ee qofku uu doorasho inuu doorto uu xaq u leeyahay asaga inuu go'aan ka gaaro uu xaq u leeyahay waaye guurka marka laga hadlayo ahmiyada uu leeyahay marka doorashada ama xulashada guurka waxa la yiraahdaa waa ahmiyada ay leedahay gurigan marka dhisaysid ina aasaaska u dhistid مثلا مشروع وحال هذا جورك ومشروع مشروع متقانين ضليرة هذا وفهمان مشروع أما بروجكت أما مشروع وحواي فكرة أي كبلا بتاكود هره كدبنا تخطيط يقرشينا كحكته كدبنا تنفيذه كحكته مشروع كاستهلك وصامرة كودر وحابة أنت فكرة دي مشروع كبلا بالهيد وحابة أنت قرشين تيسي وحابة أنت هيدا قنقلين تيسي جورك واساس وكلا ومشروع على ده marka hore wuxuu u baahan yahay fikrad iyo aragti iyo wuxuu u baahan yahay wixii inaad fikradii kaanto iyo aragtidii iyo qofkii aad dooran lahayd ina niyadaada ku soo dhacdo kadibna waxay u baahan tahay takhdiid iyo qorsheyn marka